Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhowaada Mowjiya Janaal. Maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay maalinta Jimcaha. Kusoo dhowaada mowduuceena maanta. Jimcaha waa maalin fadli badan waayo waa ciidda muslimiinta oo ay ku kulmaan masaajidka iyagoo ka kala yimi meelo kala fog si ay u dhegaystaan xuska Alle iyo wacdiga imaamka. Qofku hadduusan dhegaysan wacdiga muddo dheer qalbiga midhira marka xigana owdma. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi dadka haddii ayan ka joogin ka tegidda ay ka tegayaan salaadaha jimcooyinka, Ilaahay wuxuu ka dabooli doonaa quluubta kadibna waxay noqonayaan kuwo khayrka hilmaamsan. Jimcadu waxay ka mid tahay xilliyada samadu furan tahay oo hadduu addoonku ducaysto Ilaahay ka aqbalayo ducada, gaar ahaan xilliga galabtii. Nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maalin ay qorrax soo baxdo waxaa ugu khayr badan Jimce, waayo waa maalintii la abuuray Nebi Aadan, waa maalintii jannada la geliyey, waa maalintii jannada laga soo bixiyey. Qiyaamaduna dhici mayso maalin aan Jimco ahayn. Allah kor ahaayey wuxuu noo dardaarmay in loo degdego salaadaha Jimcaha markii la isku yeero, wuxuuna Allah yidhi kuwa Allah iyo xaq rumeeyayow marka la addimo salaada Jimce u degdega xuska Alle kana taga wax kala iibsiga, sidaas ayaa idin khayr roon haddii aad tihiin kuwa wax garanaya. Haddaba waxaa habboon in loo degdego salaada Jimcaha. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qof kasta oo muslim ah waxaa ku waajib ah in uu qubaysto maalinta Jimcaha iyo in uu labisto dharkiisa kuwa ugu wanaagsan iyo in uu is-carfiyo haddii uu heli karo. Maadaama Jimcaha loogu talagalay in dadka la wacdiyo lana waaniyo, waxaa waajib ah in la dhegaysto khudbadda imaamka. Mana bannaana in la hadlo ama la buuqo inta ay khudbaddu socoto. Nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi markuu imaamku khudbadeynayo ruuxii saaxiibkiis ku yidhaahdo aamus waa mid micno darro ah. Hadduuse qof qaldamo oo uu hadlo ama buuqo, waxaa waajib ah in laga aamuso inta ay khudbadda socoto, kadibna si xigmad leh loogu sheego. Asxaabay, waad ku mahadsantihiin daawashadiina.